ku soo dhawow mustaqbalka waqti dhow ka hor cidina kama ay fikiri karin in ay dhici doonto maalin maalmaha ka mid ah oo ay mashiinadu fikiri doonaan go'aano qaado doonaan ama ay awoodi doonaan inay aqoonsadaan sawiradeenna iyo codadkeenna waxaan ka hadlaynaa garaadka macmalka mowduucaas maanta waxaa ila qaadaa dhigi doono cabdulaahi bootaan oo muddo ka badan 15 sannadood khibrad u leh cilmiga kombiyuutarka iyo teknolojiyadda waxaan ka hadli doonaa waxa uu yahay garaadka macmalka qalabka ama teknolojiyada maalinlaha ah oo aan u adeegsano iyo mustaqbalka meesha uu socdo garaadka macmalka soo dhawaada mar kale haddii aad kanaalka ku cusub tahay fadlan ka fikir inaad rukumato ama aad subscribe saarto cabdulaahi soo dhawow waa dhowahay ustaad shaakir soo dhaweyntaada iyo inaan ka soo muuqdo shamac podcast oo aan ka tirsanaa dadkii horay oo la socday subscriberska oo ahaa sharafeen ay tahay inaan ka soo dhex muuqdo aan ka sheekaysano artificial intelligence cabdulaahi muddo dheer ka shaqaynaysay teknolojiyada iyo cilmiga kombiyuutarka waxbarashadaadana waa cilmiga kombiyuutarka bal si kooban shaqadaada khibradaada shaqo iyo waxbarashadaada nala wadaag markii ugu horeysay oo aanu kombiyuutar arko waxay ahayd 2003 aan real life u arko 2003 labadii waa isku khaldaa nin oday ah oo magaalada almost 22 sano nin oday ah oo meeshii aan markaa joogay tuulo ahayd ku haystay baa wuxuu xafiiskiisu ku yaalay meel gurigeena u dhow duhurkii baan tegi jiray marka kale dugsi baan aadaa iskool baan aadaa waa soo fiiriyaa waxaan xasuustaa wax spreadsheet ah inuu isticmaali jiray markaas oo Excel almost Excel halkaasuu ka soo biloomay caashaqayga technology-ga laga soo bilaabo xilligaas waxaa nasiib wanaag waqti yar kadib magaalada la keenay iskool kombiyuutar waxaan ka mid ahaa ardadii ugu horeysay oo kadib iska diiwaangelisa from that day maalinta ka dambaysa kombiyuutar baa gacantayda saa ugula dheh waa sii jeclaad hadda dhow baan kombiyuutar soo damiyey intaanan barnaamijka bilaabin ka hor baan soo damiyey marka intaas waa sheekadayda kooban aqoon ahaan anigu kombiyuutarka bachelor degree baan ka haystaa laakiin khibrad 15 sano ah baan ka haystaa technology-ga aan la soo shaqayn jiray private sector gaar ahaan shirkadaha telecommunication-ka baan ka soo shaqaynayay runtii waxaan dhihi karaa wax badan baan kombiyuutar kor taagnaa ama kuwiisa yaryar oo kan jeebka lagu qaatay kan laptopka ah iyo kuwa waaweyn oo seerfarada ah oo qabta shaqooyinka waaweyn ama ha ahaato kuwan telefoonada dadka u charge gareeya ama kuwan ahaada bangiyada iyo wixii la midka ah dhanka kale waxaan ahay nin aad close ugu xiran technology-ga oo trendska socda markaa kala socda baraha kala duwan ama dadka laga wareysto adduunka pioneerska waa ugu horeeyay sheekooyinkooda iyo waxay technology-ga iyo mustaqbalka aaminsan yihiin la socda baan ka mid ahay maanta ugu dambeysay waxaan dhageysanaya podcast ku saabsan application sidee loogu sameeyaa 67 daqiiqo marka waa rajaynaya inuu bioga ku soo qortid clipkaas insha Allah aan kula share kareyn insha Allah waa taamasantahay nin waxa tahay engineer aan ku dhaho engineer Cabdulaahi aad u fahansan teknolojiyada cilmiga kombiyuutarka bariyahan dambe waxa aad looga sheekeeyaa oo la hadalhayaa garaadka macmalka AI artificial intelligence oo annaga xataa Soomaali markaan nahay waa aragtay bariyahan dadka wax bartay dadka teknolojiyada fahansan aad loo hadalhayaa oo maaragtay Soomaalidu kuma warlaa bal waxaan rabaa si kooban erayo la fahmi karo in aad noogu qeexdid waa maxay garaadka macmalka AI waa maxay garaad marka la yiraahdo waa taqaanaa waa maskax ama garasho macmal laakiin wax walba la raaciyo waxa weeye wax la isku dayay waxaas in laga jilo garaadka macmalka haddii aan soo koobo wax kale isku dayay wuxuu isku dayayaa in uu koobiyeeyo ama keeno sida maskaxdu ay u shaqayso in uu go'aan kaligiis qaato in uu maaragtay fakaro in uu wax isbaro badanaa qofku markuu fikirayo muxuu wax ku fakaraa xogta uu hayo uu process gareeyaa kadibna go'aan ku dhisaa sidaas oo kale ayuu garaadka macmalka yahay ama laga shaqaynaya mar ka dambaysa in uu u soo dhawaado garaadka qofka bini'aadanka ah waa ayada la dhaho waxa loo guurayaa artificial intelligence waa loo guurayaa robotska ama kombiyuutarada sida dadkii loo sameeyo humanoidka la yiraahdo kuwa hadda ugu dambeeya marka lagu sii laray awal aad bay u xadidnaayeen capacity-gooda laakiin hadda marka artificial intelligence uu aad maaragtay u hormaray waxa awood loo yeeshay in loo tababaro shaqooyin aad complicate u ah oo
insaanka almost uu qaban karo. marka haddii aan soo koobno garaadka macmalka ah waa isku day in la gaaro iyadoo la isticmaalayo technology in la sameeyo go'aano fara badan oo sida bini aadamku u fakara ah. صح marka si aan u soo dhaweyno fahanka dadka fahankooda si aan si fiican ugu soo dhaweyno bal nala wadaag ama waxaa noo tilmaantaa teknolojiyad ama qalab ama agab oo aan si joogto ah u adeegsano oo garaadka macmalka ku jiro. runtii tusaale ahaan oo kale haddeer waxaan isticmaalnaa bara bulshaan isticmaalnaa baraha bulshada aan isticmaalno ama social mediaha youtube-ka oo kale marka aad fiirisid waxa uu arkaysaa mawduuc baa dhegaysanaysaa oo kale wuxuu ku soo bandhigayaa dhammaan mawaadiicdii la halmaaray. tusaale ahaan oo kale maanta haddii aad artificial intelligence mawduuc ku saabsan daawatid berri iyo wixii ka dambeeyay ilaa aad mawduuca bedeshid waxaa recommendeskaaga ka soo baxaya mawaadiic la xiriira fidhiga isaga ah. صح waa noocii hore narrow baa la yidhaha narrow artificial intelligence oo sida algorithm bay ku shaqeeyaan. algorithmku wax kale ma ahane waa qaab xogta ay isu soo raacraacayso hadba mawduuca markaas eray bixinta waa. tusaale ahaan oo kale artificial intelligence wixii la xiriira oo dhan oo magacaasi tah oo dhan baa kuu soo raacayaan. dhanka kale marka la fiiriyo xagga businesska oo kale waxaa laga yaabaa in aad taleefankaaga aad wax soo hadal qaatid oo aad wax ka sheekaysid. waxaa laga yaabaa kombiyuutarku inuu fahmo eray English oo ku jiray oo taleefankaaga uu maqlo sababtoo aad buu active u yahay oo waxaa shaqaynaya microphone-kaaga shaqaynaya kaamiradaada shaqaynaysa inuu kuu soo bandhigo. marka xayeysiinta ku aragtay ku aragtay oo shaashada ku aragtay qof walba oo naga midana wuu arkaa. hadda waxaa jira documentary la yiraahdo The Great Hack oo Netflix ku jira. marka su'aasha lagu bilaabayo marka documentary-gu bilaabanayo wuxuu leeyahay yaa u malaynaya in la dhageysanayo waa class nin baa weydiinaya dadkii meesha fadhiyay qof walba gacanta u taagayaa. that's why hadda qof walba oo podcast-ga aan daawan doona haddii uu u fiirsado waxyaabaha uu dhaho waxyaabaha uu daawado waxyaabaha uu jecel yahay almost uu arkaya. sometimes waxyaabo waxaa jira extreme ah oo aadan isfahansanayn laakiin capacity-ga artificial intelligence-ga ee machine learning-ka uu gaaray aa isleedahay uurkaagu daalacanaya laakiin isma ogid. صح ka badbadin inay tahay iyo wax isku soo beegmay inay tahay ma ogi. mararka qaar waxaa dhacdo adiga iyo xaliga asxaabtaada inay wax ka sheekaysataan waxa kadib markaas aad Google-ka wax ka raadi oo ereygii ama mid u dhow qortidoo kale waxaa laga yaabaa wixii aad markaas ku fikiraysa ama wixii aad markaas ka sheekaynaysa inuu kugu dhammaystiro. waxaan kaloo aragnaa marka aan hadda film daawanayno tusaale ahaan appskan laga daawado filimada Netflix ama Prime Video oo kale filmna daawanaysaa filimka waxaa laga yaabaa inuu yahay drama inuu yahay kale camal. hadda waxaa laga yaabaa 2 bil ama bil kadib ama maalmo kadib in filmo u eg oo maaragtay filimka aad daawato filmo u eg inuu ku soo bandhigo. marka meeshaasi kaalinta uu ku leeyahay waa maxay garaadka macmalka ah? garaadka macmalka wuxuu ku leeyahay mar walba wasaan sheegnay garaadku artificial intelligence wuxuu shaqeeyaa waxbuu baranayaa xogta uu ka helo wax ku baranayaa. wuxuu leeyahay shaakir isbuucu hore wuxuu daaway film drama ah waxaa soo baxay film cusub oo drama ah waxaa laga yaabaa inuu ka helo u bandhig. sidaas haddii aan Soomaali sharxan u dhigno dhan kale waa dhan programming ah oo code loo qoray hadalka aan sheegayno oo code loo qoray kadibna lagu programmay application-ka gudihiisa. marka saas uu shaqeynaya almost sababta wax walba wax ku dhisay artificial intelligence waxay ka imaanaysaa xog uu adiga ka bartay. marka hab dhaqankeennii wixii aan raadinaynay xogtaas oo dhan intuu ururiyay hadhow go'aan ku dhisaa marka sababta uu kugu soo bandhigayo exactly waa tahay. marka aan ka shaqeynayo garaadka macmalka waa mawduuc xiiso leh cusub maaragtay weli cilmi baaris ku socoto. waa maxay qodobada waaweyn oo aan ka tilmaami karno waxa maanta la hadalhay garaadka macmalka iyo meesha ugu socdo mustaqbalka way imaan doonaa laakiin waxyaabaha la hadalhayo waxyaabaha ugu badan hadda maanta loo isticmaalo maxaa ka mid ah? wallaahi waxyaabihii ugu yaabka badnaa artificial intelligence-ga ah waxaa la yidhi 10 sano kadib capacity-ga artificial intelligence-ga waxaa la gaarayaa heer aanan xanuun loo dhiman. صح waa shakii waxaan eri ma la dhimanayo miyaa malkamoodka laga boodaayo maya macnihii waagii hore waxaa jirtay xilliyadii hore in xanuun na yaryar sida TB-da oo kale wixii la midka ah malaayiin qof ay u dhiman jireen laakiin capacity-ga ay artificial intelligence-ga iyo ay u leeyihiin in ay taxliiliyaan xanuunada oo ay baaraan kadibna ay
loo soo abuuro daawo xal u noqota ayaa aad u sarreynaysa sababtoo ah badanaa waa aragtay dhakhaatiirtu marka xanuun dhaco bakteeriyadiisa la qaadaa kadibna laboratory baa la geeyaa kadibna waxaa la falgeliyaa daawooyin kala duwan sida daawada uga adkaanayso marka la isticmaalayo artificial intelligence processka laga yaabay daawo inay ku qaadato dhakhtarku ama cilmi baaruhu intaas sana ka shaqeeyo waxaa laga yaabaa millisecond inuu ku xalliyo sax marka capacity intaa la eg marka uu ku shaqeynayo artificial intelligence-ga waxaa fahmaysaa in ay macquul tahayba inaan xanuun loo dhiman oo laga gudbo xanuunada hadda dadka baabi'iyey oo ama kansarka uu ka mid yahay iyo kuwa la midka ah chroniga aad maaragtay dadka uga baqaan in xalkiisa la gaaro qayb weynna waxaa ka artificial capacity uu leeyahay badanaa insaanku wuxuu gacanta ku haya asaga sheebgareeya sida looga faa'iideynayo marka mar walba waxaa saameyn ku leh ganacsatada oo dadka maalgelinaya barnaamijkaas sidee baa lacag oo dhalin karnaa su-aal ah baa saaran marka waxaa laga yaabaa in capacitigii la filayey in la gaari waayo laakiin hadda trendiska ugu badan oo artificial intelligence-ga ee marka la fiiriyo sektarada kala duwan caafimaadka haddaan ka sheekaynay waxbarashada oo kale يعني cimilada saadaarinta maaragtay roobabka iyo dabaylaha meelaha hadda ugu daran waxaa weeye waa dagaalada waa la socotaa mandaqada aan hadda joogno waagii hore Mareykan kaliya wuxuu haystay drones صح droneska hadda waxa haysta jabhadihii baa haysta صح cirkii dhulka waa la tagay صح waxaana sahlay waa artificial intelligence-ga iyo aqoontii oo aqoon open source waxaan dhihi karnaa diyaarad uusan qof wadin la duuliyo gantaan laga gano aad iyo aad ya maaragtay taarikii markaas lagu marka la fiiriyo awoodaha sektarada ugu xoogan weeye trendiska haddeer marka la sii fiiriyo technology-ga waa si guud marka technology-ga laga hadlo trendigaas ugu horeeya dad baa dhaliila hadda nin waxaa jira la yiraahdo Peter Thiel oo kamid ah dadka investorska ugu sareeya dhanka technology-ga wuxuu leeyahay technology-ga haddeer artificial intelligence xooga wuxuu saaray dhanka information-ka oo haddeer waxa ugu badan oo laga isticmaalo artificial intelligence waxa ugu badan ChatGPT oo kale waa wax information ku khuseeya kaliya maanta dhan CV iyo qor report iyo diyaari waxaas iyo fududay kaliya way laakiin wixii kale oo technical-ka ahaa oo shaqooyin physical oo la qabto aad wali wuxuu leeyahay industrieski kala duwanaa ama ha ahaato daawada ama ha ahaato hal abuurada kale oo kala duwan oo nolosha khuseeya weli artificial intelligence-ga lama soo dhex gelin marka sometimes waxaa leeyahay su-aalo waxaa la isweydiinaya waxaa leeyahay artificial intelligence-gu bini'aadamka ka xoog badan doonaa oo computerka maadaama uu si guud average marka la fiiriyo qof aqoon badan oo garasho badan marka laga soo noqdo dadka caamada ah oo bulshada inteeda badan ma laga yaabaa artificial intelligence-ga mashiinada aadka loo tababaray inay insaanka gumaystaan oo dhahaan waxaa soo wadaba ognahay isma dhaqaajin kartid waxay dhahaan point of singularity in macnaha in qalabka aad intuu garaadkiisa u kordho ay noqoto heer uu bini'aadamka gumaysto uu ka adkaado waa mowduuc kaloo laga doodo waayo oo arrinta laga doodo aan u imaano ChatGPT soo hadal qaaday waxaan rabaa in aan u soo dhaweeyo mowduuca nolosheena Soomaalida qaybtan hadda oo trendiska ka sheekeynaysay ChatGPT-ga ka mid ah Gemini-ga ka mid ah waxaan generative ka yiraahdo qoraalada lagu sameesto codad lagu sameeyo oo maaragtay video lagu sameeyo sawiro lagu sameeyo bal ka warar kuwaasi adeegsigooda sida maaragtay looga faa'iidi karo gaar ahaan dhalinyarada oo kale sektorka waxbarashada oo kale sidee looga faa'iidi karaa inkastoo af ingiriisku ku xoogan yahay oo Soomaaliga ku yar yahay haddana dadka waxbartay uga faa'iidi karaan qaybtan oo maaragtay garaadka macmalka ee wax qora ama sawir sameeyo ama video sameeyo ama cod sameeyo waxaan rabaa fariin oo aad yaab u leh inaan halkan ka jeediyo su'aal aad muhiim ah oo ii weydiisay horta dhalinyarada waxaan leeyahay artificial intelligence odayaal waxba kuma laha fursadda yani waxaa jirta buug uu qoray nin Mareykan oo madax ka ah shirkaddan Intel waxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa buugaas Only Paranoid Survives marka wuxuu ka hadlayaa capacity-ga sagaashamaadka buugga 95 baa la qoray wuxuu ka hadlayaa capacity-ga technology ay leedahay iyo shiftinka ku dhacaya sababtoo ah processing-ka sector-ka marka la fiiriyo anaga hadda sheegnay waa meelaha awoodda u leh oo artificial intelligence-gu inuu successful noqdo process baa ka dambeeya marka ninka isaga ah marka wuxuu leeyahay waxaa jira xilliyo waxaa jira loo strategic inflection points xilliyada ay isbedelada waaweyn dhacaan
xilliyada aan hadda ku jirno oo kale artificial intelligence uu trendiga yahay waxaa dhacaya shirkado badan oo technology ku jira inay hawada ka baxaan صح any traditional industry oo technology oo dhan arki jira doon oo dhan waa tagayaan shaqooyin badan ba hadda la waayaya programmers ba la waayaya editors ba la waayaya hatta podcast ba hadda sameeynayna صح mar dhow marka afirisa Adobe oo kala qaybta AI-ga wuxuu leeyahay videoga timeline ka dhigaysa asaga isku kad gareynaya salahaan kale hadda laba camera ku duubayna labada camera videoga soo dhex dhigaysa AI-ga u diraysa صح markaas wuxuu capacity u yeelan marka sax tiraahdid adigu ku muujiyadana iyo soo celiyo capacity uu leeyahay qofka video editor-ka marka la fiiriyo waa shaqo aad u adag absolute okay marka dhalinyarada waa soo noqonaya dhalinyarada waxa ugu bishaareynaya meesha kaliya oo isku xoreyn kara maantay waa artificial intelligence maandhow in dhalinyarada baa wuxuu weydiiyey su'aal wuxuu yiri AI-ga maadaama uu soo baxay dad badan oo xirfadaha aqoonta technology-ga bartay hawada ka baxayaan macnaheedu waxooda AI baa qabanaya marka waxaan ku iri AI-ga qofka technology yaqaan kaliya la hadli karaa صح haddii aad aqoon artificial intelligence ChatGPT su'aasha aad aqoon inaad tiraahdo code hebel isoo saar xagee ka keenaysaa صح af Soomaali baa ku qoraysaa ma ku qoraysaa waa ana capacity u leedahay technology fahansata way wax kaaga bilaaban yihiin of course okay dhalinyarada marka la fiiriyo dhalinyarada fursad waxay u haystaan in ay dhex galaan technology oo si aad ziyada u dhex galaan naga Soomaali marka la fiiriyo internet aad u sareeyaan Afrika meelaha uu internetka fiican ku jirnaa laakiin waxyaabo macna darro ah dad celebrity oo aan aqoon badan iyo garasho badan wax badan aan laga faa'iideyn ba aad loo daawadaa dhalinyarada marka waxa ku bogaadinaya ama ku dhiirigelinaya in ay artificial intelligence isku dayaan inay fahmaan صح dhex galaan computerka basicskiisa bartaan hadhowtii waxay u sahlaysaa qofkii in uu technology-ga dhex galo uu business ka sameyn karo application ka sameyn karo maxaa la hal abuur ka sameyn karo uusan sugin in uu jaamacadda intuu ka baxo uu shirkad hebel CV u qorto maan dhaweyd nin ka tirsan madaxa shaqada shaqaalaha hay'adaha caalamiga mid ka mid ah baan sheekaysanay wuxuu ii sheegay hal position oo technology ah 700 oo arday inay soo qof inay soo apply garaysay can you imagine hadaa 700 qof chance intaas waa 700 oo shaqo markii la soo dhajiyay inaa fursad heshid waa صح ninkii marka isdiyaariya technology-ga isku diyaariya xirfadiisa dhisa waxbarashada almost waa free application hadii la dhaho saacadan baa weydiin kartaa YouTube baa weydiin kartaa ChatGPT baa weydiin kartaa Google baa weydiin kartaa application see loo sameeyaa صح sidee baa business online looga sameeyaa sidee baa technology-ga loo soo baraa maadooyinka xiiso badan waa wax aad u furan maadaama marka xagga loo shift garaynayo in dhalinyaradu ay maaragtay dhanka technology isku diyaariyaan way la socdaan si dhiiran isugu diyaariyaan si fiican mid kalena u sheegayaan haddii ay sugayaan dadka ka waaweyn ama aabayaasheen ama siyaasiyiinta ama ganacsatadeena aniga hadda xoogaa cirayaan odayaashan ku soo biiray odayaashan waqti badan aan ku soo dhex jiray odayaasha waxba dhankooda kama jiraan to be honest odayaashan waa sii socdaan tusbaxooda wataan adduunyada waa ka sii laalaabteen qof sii socda noloshana ha ku dhisin technology-ga waa inaad capacity u yeelatid inaad self education aa samaysaa adoo wax barataa waxyaabaha muhiimka marka waxaa ka mid ah qofka saacidaya inuu dhanka luqadda iska dhiso صح anigu wadankaan luqadda ku bartay wax badan baana ka fahansanahay dadka qaybta barrier ba isku xiran waxay leeyihiin iskool hebel haddaan tago ama macallin hebel haddaan helo baan wax ku baran karaa luqadda kale laakiin waxyaabaha sahli kara waxaa ka mid ah luqadda inaad baratid inaad la saaxiibtid dad luqadda yaqaan صح ajnabi haddaa aragtid internet kala saaxiib asxaabtaa social media maanta la sheekaysa hal qof oo ajnabi Kenya ba Allah ka dhigay iskala saaxiib صح luqadda ku baraka la sheekayso dhageyso wararka English ku dhageyso filmaanta Englishka daawo waxay ka saacidaysaa in capacity-gaaga luqadeed aad kor u qaadid sababtoo AI-ga hadda qalabka uu adeegsanayo iyo xogta internetka ku jirto iyo macluumaadka iyo aqoonta internetka ku jirto boqolkiiba boqol wax ku dhow waxay ku qoran tahay of course af Ingiriisi ku qoran tahay marka haddii aadan af Ingiriis aqoonin teknolojiyadan si fiican ama si haysan uma faa'iideysan kartid anaa ku lahaa dalka ugu weyn adduunka maaragta ugu dhaqaalaha fiican ugu teknolojiyada badan waa Mareykan laba isku diidana wax ku qoro iyo aqoonta wax ku soo kordhiyo
af ingiriisku ku qoran yahay taa darteed marka waa tala aad iyo aad muhiim ah dhalinyarada inay maaragtay af ingiriiska si fiican u bartaan weliba aysan sidaa sheegaysay aysan isku qufulin aysan dhihin ilaa aan dibadda ka aado ama iskool hebel aan aado ma ahana si kale kuma baran karo laakiin tijaabooyin waxaa haynaa dad waxaa haynaa dalka af ingiriis ku barta exactly waata ustaad aan ku weydiiyo ka waran mustaqbalka oo garaadka macmalka ah xaggee u socdaa maxaa la fili karaa hadda waxaan joognaa garaadka macmalka uu bini'aadanka waxyaaba fara badan ka taageero caafimaadka cimilada waxbarashada maaragtay qoraalka videoga mashiinada aan adeegsano warshadaha maaragtay mashiinada loo adeegsado waxaasoo dhan marka si guud maxaa hadda laga sheekeynaya garaadka macmalka mustaqbalkiisu waa xaggee xaguu u socdaa maxaa la fili karaa sanadaha soo socdo dadku maxay saadaalinayaan gaar ahaan qoladiina maaragtay teknolojiyadda aad ugu dhex jira su-aal muhiima wey runtii horta mas'alada yani mustaqbalka iyo garaadka macmalka waa su-aal basal ah aan la aqoon oo adduunka moogta insaanka waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah waxaa dadka aaminsan yihiin 1960kii wixii ka dambeeyey inaan hal abuur badanba la samayn sababtoo ah waxyaabahan technologiga ah enhancement baa socday laakiin waxaa xilligaas jiray tusaale ahaan oo kale diyaarada waxaa jira dhowqooda ka dheeray diyaaradda konkon la yidhaahdo oo kale kombyuutarkan iyo xilliyadaasi aad u soo baxeen waxayba leeyihiin sida hadda iphone ay laga soo bilaabo iphone 11 ilaa haddeer oo telefoon isku eg lagu soo celcelinayo artificial intelligence technology wax badan lama soo kordhinba marka waxay aaminsan yihiin inuu xadidan yahay oo technology aan wali la dilaacin oo ku xadidan yahay waxyaabaha xogta la xiriira hada tusaale ahaan kale update kasto aragtid adaad computer isticmaalaysid hadii wax isticmaalaysid wax badan oo farqiya uma dhaxeeyo hada ChatGPT ga soo fiirisid iyo Google-ka oo kala search-kooda wax yar baa u dhaxeeya oo farqiya dadka qaybtooda waa haystaan waxay leeyihiin hadda nin waxa jira la yiraahdo Noam Chomsky la yiraahdo oo linguist ah wuxuu taagan yahay artificial intelligence waa tuugo wuxuu leeyahay waa mashiinka ugu weynaa oo maqaal waxa jira New York Times ku qoran waa mashiinka ugu weynaa oo tuuga ah sababtoo ah xogtan uu soo gudbinay asaga ma alifin waxay ku jirtay webkii ku jirtay internet ku jirtay buu ka soo qaada buu kasto oo internet ku aragtin Google ba waxa leeyahay GPT waxa leedahay isoo koob samaraasiga soo samee buuga xagee uu ka keenay internet ka soo qabtay soo qaaday gaar ahaan qaybtiisa internet ku xirna online-ka exactly buugi buu access u yeeshay marka dadka qaybtooda waxay aaminsan yihiin in dhanka technology-ga wax badan oo horumar laga sameyn dadka qaybtood waxay ataagan yihiin tuugadaasba way dadka qaybtood waxay ataagan yihiin insaanka waa lagu gumaysanay singularity ga sheegaysa oo kala wax imaanayso oo waxa imaanaya in insaanka oo dhan robots adduunka loo bedelo shaqaalayaal badan laga tanaasulo hada shirkadaha qaybtood Mareykanka oo kale marka afeerisid stoorada oo kale meel shaqooyin badan waxa la wareegay mashiinada la wareegay dadka qaybtood waxay leeyihiin hadda tusaale ahaan oo kale ninka Sam Altman la yiraahdo shirkadda OpenAI ChatGPT samaysay wuxuu leeyahay universal basic income wax la yiraahdo baan hordhac u bilaabay wuxuu leeyahay yani sida adduunku ku socdo shaqaalada loo baahanayo marka bini'aadamka adduunka jooga waxa la rabaa mushaar fiican iska siiyo hadii kala gaajo u dhimanaya marka waxyaabo theories oo fara badan oo maaragtay aan la kala garan karin waxa ay ku base gaaraysanaan laakiin waxa xaqiiqada jirta waxay tahay in artificial intelligence capacity-ga machine learning-ka aad u sareeyo muuqaalo la samaynayo hadda يعني تسألهانو كله مركز أركت وح أركيسه صور ويل يا جبر عادي وسلت تاجن بقى اللي قلنا كتب من الأول قف قرب حب السنة يا لعك يا تسألهانو كهذا وحي سميان دونالد ترامب وقعنتها استسلانتي ما أركتي لا ترتميسي قعنتها كمال هاريس قعنتها استالة تسوي لو بكاست وأنا مركز أوفير أما مركز غير وحي سمينا يعني qof aan ah oo malaha konton jir oo kale oo hab siinaya ama la sawirin isaga oo yar marka 20 jirka hayo kale exactly sawirada hadda waa aragtay trendiga waxyaabaha kale waxa hadda industry-ga filmaanta oo kale marka ay fiirisid waxyaabaha la sameeyo waxa kamid actors oo kale in laga sii reebo muuqaalkiisa oo actorka lacala haduu dhinto muuqaalkiisa uu AI-gu hayo kadibna waligii dambe la adeegsan doono arintaas maalin waxa ka sheekeynaa Tom Hanks waxaan ka baqaa u dhahay markaan inta kadib yani in
dadku awood u yeeshaan intaasoo filin inaan ku jiri karo aan samayn karo aad iyo aad anigoo mootan exactly يعني capacity uu leeyahay hadda ayaan dhaweyd waxaa jirtay lecture la soo galiyay Stanford jaamacadda Stanford marka nin la yiraahdo Eric Schmidt oo awal Google CEO ka ahaan jiray baa hadlaya lecture-kaas waxyaabo badan oo sir ah buu sheegay actually capacity-ga AI uu ku socdo wuxuu leeyahay AI wuxuu capacity u yeelanayaa inta u dirsatid inaad tiraahdo TikTok application labada ii samee fiidiyowadana ii soo deji completely copy TikTok oo caadi oo dhameystiran oo adiga shaakir lagu dhaha sameysanaysaa lecture-kii xoga badan oo capacity-ga technology-ga mustaqbalka uu ku socdo buu ka hadlayaa lecture-kii jaamacadda Stanford way ka saartay YouTube dad badan baa sii dejiyay marka aan laftirkii maalin dambe meel kale aan ka soo dejiyay oo computer-kayga hadda igu jiraa laakiin wax badan oo hadda shirkadda Google oo kale khatar bay dareentay waxa soo noqday nimankii hore oo Larry Page iyo waxa soo noqday Sergey Brin waliba Sergey Brin inuu soo noqdo umaleeyo shaqada dib ugu soo noqday ayaan taa hindi baa haysatay Microsoft Dell iyo nimankaas meesha haystay nimankii hindida ay marka waxa la yimaadeen work life balance iyo alla seexday formation tartan baa socda marka lama yaqaan industry-ga qolo walba oo ordaysa wax isku dayaysa inay innovation samayso laakiin se waxa moodaa inuu xadidan yahay sax dhanka hal abuurka technology maalin waxa arkay graph laga sameeyay hal abuurka technology-da hardware hada shirkadda Nvidia oo hada ugu valuation-ka ugu sareysa shirkadaha technology-ga oo number 1 adduunka ah يعني وحيابها أي success وقاري واحد كم إذا إني سميه processor capacity وصار هذا واحد سميه مثل يرى هذا H100 وآها processor وحوق بدن حق machine learning كا وجوجل ما له واحد دقي سنة شركة دان X أما تويتر وقيبت AI XAI بالير هذا إلا بقولكم أو machine أو H100 bay ku tababarayaan wuxuu leeyahay Elon Musk waxaan rabaa inaad dusha ka maro ChatGPT capacity-ga sababta waxaas lagu tartamayaa mooqaa Grok uu samaystay oo waa arkaysa subscription lagu galay Chinese-ka hadda mid bay sameeyeen saas oo kale oo ka capacity sareeya inkastoo daas xaafad baa isku baabi'ina Chinese xaafadda waa looga horeeyaa marka AI-ga capacity-ga speed-ka uu ku socdo waa wax aanan la garan karin oo aan la sheegi karin hadda sheego waxaan ka baqayaa oo balaa iska dhigo in la yiraahdo xagee warkaas ka keentay magaratay waan run oo mid walba wuxuu isku dayay mustaqbalku waa wax yani si go'an looma saadaali karo aad iyo aad looma saadaali karo xataa qolada ku jirta qolo walba ordaysa laakiin qolo industry-ga technology-ga industry-da kale uu ka duwan yahay ishtaan xagga marka laga hadlayo shirkadaha marka planning la sameynayo oo kale shirkadaha kale waxay degsadaan 5 year 10 year 20 year plans bay degsadaan laakiin technology waa 1 year plan waa aragtay صح shirkad walba sanad walba product cusub bay soo saaraysaa shirkadii sanadka la waayo waxa way waa laga tagay okay stock-geeda hoos u dhacay waxa laga yaabaa in uu kala carro lacagta qolo walba lacagteeda kala nahay waa xawaaraha ku socdo waa xawaar aad u sareeya engineer waa soo gabagabaynaynaa waxaan rabaa su'aasha ugu dambayso inaan ku weydiiyo oo ah bal si kooban u dulmar garaadka macmalka iyo xaaladda Soomaalida hadda sidii had u adeegsato sida loo fahansan yahay shirkadaha adeegsado meelaha ugu badan oo laga adeegsado iyo sida ugu habboon oo qofku uga faa'iideysan karo garaadka macmalka heerku doonaha jooga hadduu arday yahay hadduu macallin yahay hadduu aqoon-yahan yahay hadduu qof caadi yahay runtii garaadka macmalka waa shaqaale free ah wax badan buu ka caawin karaa Soomaali ahaan marka loo soo noqdo Soomaaliya runtii waa wadan u badan dhalinyaro yani wadamada adduunka marka la fiiriyo Chinese-kan adduunka ordaya iyo Mareykanka kulli dhalinyaro ma haystaan waa dabar go'aya basically laakiin Soomaaliya marka la fiiriyo plus 75% waxa la dhahaa waa dhalinyaro waxaan dhahaaba Soomaalidu aqli badnaantooda iyo furfurnaantooda haddii ay la jeheen lahaa oo aragti umadeed oo qaran inta la sameeyo loola jaan qaadi lahaa in technology-ga laga faa'iideysto runtii wax badan baa maaragtay la fududeyn lahaa
يعني كل ما قرنا إني مدحونها ولقيسان دونين لكن مدحها ضدك أما ضدك decision makers وأنا priority شيء واحد جرا ريبورت سند لا أدونك صباح واحد له wall competitiveness report marka waxa lagu tartamaa 12 tiir baa lagu tartamaa waxa kamida technology-ga qodobada ugu advance way anaga waxa ka hooseeyna qodobada koowaad oo basic infrastructure-ka laamiyadii jidadka aarmadii korontadeedkii marka xaqiiqatan dhanka kale marka la fiiriyo adduunka isbiirku ku socdo wax badan baa si degdeg ah ugu soo gaari karaa oo hadda Kenya oo daris aan nahay wadamada ugu horeeya xagga technology-ga ay ku jiraan oo shirkadaha waxa jira unicorn shirkadaha la yiraahdo shirkadaha billion dollar gaaray marka Soomaaliya marka loo soo noqdo haddii ummad ahaan laga shaqeeyo fursad badan baa haysanaa oo leadership ah dhanka kale waxaan leenahay dad badan oo technology-ga bartay ama qurbo joogta ama dadkeena wadanka wax ku bartay dadkaas haddii siyaasad wadanku ka yeesho oo dawladdu ka yeelato wax badan bay fududayn kartaa haddii aan soo noqdo dhanka shakhsiga ah marka soo noqdo sida looga faa'iideysan karo kale wadamada private sector-ka oo gaar ahaan telecommunication-ka way ku mahadsan yihiin runtii bilad bay ku mudan yihiin waxa u malaynayaa xataa yub ee Mareykanka inaan uga horeyno meelaha qaybtooda oo kale in hadeer aan telefoon lacag laga diro oo electronic money la isticmaalo Yurub iyo Mareykan waa meelo badan oo kamid ah uga horeynay dad ka hor waxaan garanayaa nin wadamada Yurub ka tirsan baa wuxuu ugu yiri internetka Soomaaliya ku haysta meelaha qaybtooda Yurub ma yaal marka internetkaas furan waxaan tala ahaan soo jeedinay in qof walba uu capacity u yeesho in uu horta barto sida loo isticmaalo artificial intelligence-ga sidee buu ku baran karaa waa inay baahi abuurataa tusaale ahaan oo kale qofka haddii uu rabo inuu xirfad technology ku dhisan ama programming ha ahaato ama designing ha ahaato ama editing ha ahaato ama shaqo kale oo article sida loo qoro iyo research sida loo qoro inuu isku dayo inuu xirfad uu samaysto qof walba wuxuu jecel yahay sector walba waxa laga baran karaa xirfadaas marka wuxuu kugu dhalinaysaa in aad u baahatid technology-ga gaar ahaan garaadka macmalka ee ayda u baahatid qofkii marka taas waxay ku sii riixaysaa in uu develop garay skill-kiisa ee technology-ga inuu la dhiiri gareeyo sometimes inay hal abuuro ku soo dhacaan dadka qaybta waxa arkaysa qof aama ah ama ilmo yar ah baa wuxuu ku weydiinaya waxyaabo ay ku saabsan hadda ka hor waxa jira wiil yar oo dhalay Yoonis la yiraahdo wuxuu aad ma jiraa wiir gaari kaligiis iska socda waa jiraaba erag waligiis muusa arag marka waa waxyaabo maskaxda ku soo dhacay waxa laga yaabaa shirkadaha qaybtood hadda ninka leerka sameeyay asagoo farsamo ahaan ma sameeyo laakiin investor buu ahaa marka haddii aad technology-ga fahansan tahay wax ka akhriso wax ka dhageysatid AI baa u darsanaysaaba oo waxa la application-ka ay develop kareen customer-kaas igu sameeyo bulshadeen marka la fiiriyo dhalinyaradana inay is abaabulaan ardayda hadda dadka ugu mudan horta abaabulka fariinta ku socota waxa way ardayda jaamacadaha dhigta gaar ahaan technology-ga bartay qof walba oo jaamacadda ku jira ha ku fakaro application-ka uu ku qalin jabinayo oo project-ga uu ku qalin jabinayo inuu noqdo business hadda jaamacadaha wadamada Israa'iil oo kale waa wadan yar laakiin saameyn weyn xagga technology ku leh jaamacadda Jerusalem mar aan presentation diyaarinayay waxaan arkay ardayga shuruudaha laga rabo in uu qalin jabiyo waxa kamid ah inuu company ka dhigo tusaale ahaan oo kale aniga waa qalin jabinaya waxaan rabaa inaan ku qalin jabiyo project application lagu monitor gareeyo dadka ay abaaruhu saameeyaan oo kale markaas application-ku develop gareynaya diyaarinaya hadhowtii markuu qalin jabinayo thesis-kiisa waxa weeye application shaqeynayo shirkad oo furan oo customer leh saasuu shahaadada ku qaadanaa marka anaga ma garanayno industry-geena ama jaamacadaheena si u enforce gareyn karaan oo capacity-geena iska yar wadan yani Israa'iil wadan dhaqaale badan geliya industry cilmi baarista geliya maalgashi buu helayaa dhiirigelin buu helayaa macallimiin fiican buu helayaa wax badan buu helayaa laakiin saasoo ay tahay lisma dhiibo technology baa jira ganacsatada hadda waxay fahansan yihiin dhalinyaro badan baa sector-ka soo galay ustaad Shaakir oo kamid yahay marka in la soo galo oo qof walba fikradiisa isku dayo in uusan siyaraysan anigu shakhsiyan markii aan baranayay jaamacadda dhameynayay company ba aasaasnay oo systemyaan sameynay waagaas application ma jirin waagaas waxaa jiri jiray desktop applications billing systems waxyaabo saas oo kala baan sameyn jirnay marka qofkii in uu ku talagalo markuu qalin jabiyo in uu maaragtay development solution bulshadiisa u keeno wax uu asagu markaas passionate u yahay ama la hadal hayo uu raadiyo dadka marka aqoonta technology-ga leh markii ay horseedaan oo la arko hal wiil dhalinyaro ah oo millionaire ka noqdo application uu develop gareeyay hal wiil hadda aragna bas dhalinyarada dhan waa ku soo dhiiranaysaa
marka wiilkii ama gabadhii baan halkan ka rajeynaya insha Allah inuu maaragtay kelmadan ka soo dhaco marka laga soo tago ganacsiga marka laga soo tago waxa laga yaabaa in applicationadaasi mashaakil far badan oo bulsheed inay xaliyaan laga yaabaa of course sababtoo ah yani nolosha oo dhan problem baa taagan wax walba problem baa taagan nolosha markay aad u hagaagto waxaa loo doodayaa xayawaanaadka iyo bulaalaha iyo loo doodayaa hadda marka anaga dadkii bini'aadamka baa naga dayacana waxaa rabnaa bal dad solutions u soo sameeya in la helo baahidaasna aad bay u jirtaa waddanka sir baa idin sheegayaa ajnabiga waddankan ka shaqaysa dhanka technology-ga lacag waali ahna oo ku qaataan marka waxaan rabaa inay xisaabtan gashaan haddaa rabtaan figures ayadoo ahna xalqa kale aan uga warramayna insha Allah saa iimaanka inta la soo dhawo injineer Cabdulaahi Bootaan aad iyo aad u mahadsantahay Allah ibarak akhyaarta sharafta leh waxaan rajaynayaa inaad barnaamijka ka wada hesheen haddii aad halkan soo gaartay waxaan ka codsanayaa in kanaalka aad rukumatid mahadsanid nabaday